nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegay saddexdii ilmood ee dharabta ku hadlay waxa uu sheegay nin Jurayj la yidhaahdaa inuu jiray oo caabid ah oo meel u baxay keligii meel uu ku cibaadaysto oo guri intuu dhistay dabaqa yara sare gala oo halkaa keligii ku cibaadaysta hooyadii baa soo booqato u timi dabeetana isagoo salaad xidhan baa u timiyo yaa Jurayj bay tidhi ummii wa salaatii buu yidhi hooyo iyo salaad dabeetana salaaddu iska watay hooyo way iska noqotay maalin labaad bay timi sidiisi leeg buu ugu yeedhay haddana ninkani waa nin cibaado u go'ay hooyo iyo salaad buu yidhi dabeetana salaaddii buu iska watay mar saddexaad bay u timi sidii oo kalaa dhacday dabeetana way habaartay ninkana caabidkii halkaa ku jira ilaahu isaga iyo dumarka xunxun istus bay tiri waxay ku habaartay isaga iyo muumisaadka dumarka xunxuni inay sarkaan waxaa la yidhaahdaa qisada meeshan waxaa degganayd gabadh aad u qurux badan oo haddana dumarka xun ka tirsan dabeetana iyadoo Jurayj la ammaanayo cibaadadiisa laga warramayo maqashay waxay tidhi kaa sheegaysaan bal aniga igu dhiga waxaan ku sameeyo anaa idin tusi doona dadka badh baa shayaadiina oo xumaha jecel qof aan waxba u geysan bay waxay leedahay anaa xadhigga weydaarin doonay aniga igu sima way soo baxday Jurayj way isu bandhigtay laakiin ninkani cibaado u go'ay qawsaar ama dhoobisa u taqaaniin mid xoola raaco meesha jooga ayay gabadhii isu dhigtay ilmay dhasha yaa dhalay baa la yidhi ilmahana waxay tidhi Jurayj baa dhalay Jurayj baa sawmacadiisiiba la dumiyey meeshii uu ku cibaadaysan jiray baa la yidhi tuugga xumeeyo intuu hablaha u weydaartaa buu halkan wadaad iska dhigaya waxaa dhacday markaa wuxuu yidhi war bal ilmaha u yeedha ilmihii baa la keenay ilmihii buu gujiyey laba ragcadood buu tukado kadib intuu ilmihii gujiyo yidhi man abuk war aabbaha waayo ilmihii yaraa baa ilaahay ka hadiyey wuxuu yidhi waa qawsaarka gala adhiga raaca waa ninka xoolaha jira qisadani laba wax bay tilmaamaysaa kow waxay tilmaamaysaa cibaadada anfaceeda waxay kaloo tilmaamaysaa weligaaba cibaado badna waa haddii odag iyo islaantu wax kaaga tagaan inaad khatar ku sugan tahay waayo islaantaasi habaarkay habaartay waa la istusay isaga iyo wixii ay ku habaartay isagana markii dambe ilaahay wuxuu ku badbaadiyey oo ku karaameeyey cibaadadiisii tirada badnayd ee uu samaynayey asalna waxaabay culammadu leeyihin faradka loogama baxo laakiin adoo sunno ku jira haddii waalidku yeedho waxaa waajib kugu ah inaad hee tidhaahdo waayo sunnuhu waa sunne waalidka inaad u jawaabtaana waa faral idan waa inaad ka baxdaabay culammadu yidhaahdaana aad u jawaabtaa waalidka abaa hurayre iyo qisadiisii saxaax ku soo aroortay abaa hurayra wuxuu leeyahay hooyaday baan u yeedhi jiray oo diinta ugu yeedhi jiray gaalad bay ahayd markaan diinta ugu yeedhanayana nebigay wax ka sheegi jirtay isagu wuxuu leeyahay kaalay oo islaamo diin buu ugu yeedhayaa iyana waxay ugu jawaabaysaa canaadnimo waxay ka qabta marka kan inay nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegto anoo ooyayaan haddana nebiga u tagaa buu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaan idhaahdaa ilaahay rasuulkiisii iyo hooyaday baa diinta ugu yeedhay dabeetana wax xun oo adiga ku saabsan bay maqashiisa ilaahay ii bari buu abuu hurayre leeyahay nebi maxamed in ilaahay hooyaday hanuuniyo ilaahay ii weydii nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha kor taagoo rabbi baryey buu wuxuu leeyahay allaahumma hdi umma abi hurayra ilaahayow hanuuni abi hurayre hooyadii anigoo ducadii nebiga ku faraxsan buu yidhi baan dib u noqday markaan gurigii ku dhoway albaabkii ayay qajaftayda maqashay hooye saqadhii bay maqashay guryuuna albaab ma lahayne waa daah yaroo la iska duwo markaasay ku tidhi waar halkaaga joog markaasaan maqlay buu yidhi biyaha sanqadhoodii biyay isku shubaysaa ilaahay ducadii nebi maxamed buu aqbalay oo way islaamtay oo dabeetana gaalnimadii bay ka maydhanaysaa abuu hurayra intuu soo socday bay islaamtay markaasaan ay tidhi buu yidhi halkaaga joog kadib markii ay qubaysatay ay tidhi soo gal buu yidhi oo waxay igu tidhi yaa abaa hurayra ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh anigoo farxad haddana ooyayaan ku noqday buu yidhi nebiga markii hore isagoo ooyayo wixii nebiga laga sheegay iyo hooyadii gaalnimada haysatay ka ooyayuu yimi iminkana anoo ooyayaan nebiga ku noqday buu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaan idhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyoo bushaarayso rabbi dacwadaadii waa aqbalay nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ilaahay ammaanay
oo khayr yidhi buu ayaan haddana abu hurayra wuxuu leeyahay waxaan ku idhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaad haddana ii baridaa anigiiyo hooyadayba in ilaahay dadkana jeclaysiiyo addoommaha alle in ilaahayna jeclaysiiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam mar kaluu abu hurayre u duceeyey xadiidka saxiix muslim buu ku yaallay allahuma xabib cubaydaka haada yacni abu hurayra wa ummahu ilaa cibaadika almu'miniin waxabib ilayhim almu'miniin nabigu wuxuu ugu duceeyey ilaahu addoonkaaga kan addoonyarahaaga kan abaa hurayre ah isaga iyo hooyadiiba ilaahu ummaddana jeclaysii iyaguna ay jeclaadaan abaa hurayre waa idinkaa arkay oo xadiidka abaa hurayre laga waayo dadku maba rumaysna in badan idan waa jacayl loo qabo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu ugu duceeyey waxaan leenahay ilaahay u bari diin ugu yeedh raalli ahaanshahooda raadi oo wax ay ka damqadaan haba yaraatee culammadu waxay dhahdaan cuquuqul waalidaynka markay tacriifinayaan waa wax uu kahado waalidkaayo aad sheegta bay idhaahdaan ayankaan saa awgeed baa nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam rida arab fii rida alwaalid wa sakhatu rabbi fii sakhati alwaalid ilaahay raalli ahaanshihiisii wuxuu ku jiraa waalidka raalli ahaanshihiisa cadhada allena waxay ku jirtaa cadhada waalidka baa la yidhi waalidka haddaad ka cadhaysiiso waxay u dhowda inaad rabbigaa ka cadhaysiisa sida awgeed waxau nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inaad ku dadaasho waxaynu tilmaamaynaa marka waalidka habaarkiisu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya axaadiista ka asaxday 3 baryo xagga alle lama celiyo waxaa ka mid ah dacwatu lwaalid riwaayaadka qaarkoodna dacwatu lwaalidi calaa waladi ayay tilmaamayaan habaarka uu habaaro waalid ilmihiisa wuu ku dhacaya siiba hooyooyinka waxaan leeyahay afkiinnu iyo habaarka baranin inkaari kugu dhacday iyo habaar baad qabtaad iyo waxa kan habaar buu qabi uun in badanoo soomaali aanu taagla'ana islaamaha ku yidhi habaar baad qabtaa habaarkii loogu duceeyey bay qabaan idan waxa fiican qofka muslimka ah isaguna inuu wax fiican ku hadlo inaanu erayada xun carabkiisa barin saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay habaarka waalidku wuu dhacaa waxaan leenahay waxaa ka mid ah waxyaabaha waalidka loogu samafalayo inaad asxaabtii waalidka isaga daaye cidduu la saaxiibkaa inaad xidhiidhiso haddaad ogtay cid aabbahaa ama hooyada ay ixtiraami jirto saaxiib ay la ahayd inaad xidhiidhiso cabdillaahi ibnu cumar iyo ardaygiisii cabdillaahi ibnu dinaar taabicigii la odhan jiray iyagoo xaramka yimoo ka noqday dhexda maraya ayaa nin reer baadiyii ku soo baxay dabeetana ibnu cumar baa dameeruu fushanaana siiyey cumaamadiisiina u furay cabdillaahi ibnu dinaar baa wuxuu yidhi ibnu cumarow ninka kani waa reer baadiyuna wax yar bay ku qancaaneen haddaad cumaamadda siisay maxaa dameerka ugu dartay baa dameerkaaga iska fuushanaatay wuxuu ku yidhi ninka kana aabbihii ahlu wuddu cumar buu ahaa aabbahay saaxiibkii buu ahaa markaa aabbahay dadkuu jeclaa ee saaxiibka la ahaa mar hadduu wiilkan dhalay saas baan ku xidhiidhinayaa buu tilmaamaya silatu lwaalidi ahlu wuddu abiih nebigaa yidhi inna abar albir sama waxa ugu fiican xidhiidhka uu waalidku xidhiidhiyo dadkii waalidkii jeclaayeen waalidka ama aabbaha ha noqdo ama hooyada ha noqdee intay xidhiidhin jireen inaad xidhiidhiso qaababka loogu samafalo waxaa ka mid ah inaad ilaahay baryadiisa u badisid nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay camalka bini aadamku inuu go'o ilaa iyo 3 mooyaane 3daana waxaa ka mid ahaa waladin saalixin yadcu lahu wiil saalixah oo u soo duceeya bale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa jannada waalid ku jira ayaa darajadii uu lahaa kor looga qaadaa markaasuu yidhaahdaa annaa lihaada ilaahay intan maan shaqaysana xaggay ka timi fayuqaalu biistigfaari waladika lak waa dembi dhaafku ilmahaa dhashay ilaahay uu kuu soo weydiinayay subxaanahu wa tacaala aabbaha hadduu nool yihiyo hooyada hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba ilaahay u bari hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba ilaahay u bari wixii aad cibaado u samayn kartana u sameeye sharcigu baneeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay gabadh baa waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa iyo hooyaday jaariyad baan siiyey dabeetana way dhimatay
jaariyaddii waa tan odday igu soo noqotay maxaan sameeyaa waxay ka cabsatay in sadaqada laga aqbali waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi adiguna ajarkaagii waad heshay dhaxalkana ilaahay baa kuugu soo celiye qaado calaa kulli xaal waxay jeclayd inay xajta buu yidhi ka xaj waxaan ku soo koobayaa wixii cibaado sharcigu banneeyey taan sharcigu bannayn maaha wixii sharcigu banneeyey cibaadaana u samee وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين